ma ogtahay in magaalada Hargeysa iyo Burco iyo Berbera iyo Boorama laga dhoofiyo caruur iyo hablo yaryar oo inta la qaado la geeyo xalana waa Muqdisho oo intoo lagu qasho la iibiyo beerkooga iyo wadnahooga iyo kalahooga iyo isbaarbaara dabadeedna inta la dhoofiyo dhaqaatiirta caalamka laga dhoofiyo dabadeedna lacag malaayiin laga sameeyo maanta waxaan idinka warrami doonaa sheeko la yaab leh oo ka dhacday magaalada Hargeysa oo ku dhacday inan shabakadaasi markaas ku fashilantay inantaasi sidii loo qashay sidii loo dhoofiyay meelihii la mariyay dadkii waxan ka dambeeyay dadka imika la hayo iyo inantaa lafteeda oo arinteedii la siyaasadeeyay ayaan idinka warrami doonaa waana sheeko la yaab leh oo aad iyo aad u khatar ah hadduu ilmo ka maqan yahay isleedahay tahriib ku maqan yahay haddii aad isleedahay waxaad laadahay wiil ama gabadh muddo hore la waayay waa sheekadan waxay soo taxnayd ilaa 2019 waa shabakad taxan Hargeysa Burco Garowe ilaa iyo Muqdisho oo 3 gamcood marta kadibna laga ganacsado hilbahaasi iyadoo mararka qaar la adeegsado sixir iyo waxyaabo la mid ah oo inta qofka la sixro isagoon oo sugeyn la kaxeeyo nasi ogtahay hilibka ama marka loo eego kaliyaha iyo wadnaha kuwa dumarka inay aad u jecel yihiin barnaamijkaasaan maanta idin hayaa maanta sheekadan idin hayaa waa sheekada Mabsuud Cabdi Ismaaciil Rooble inantaas qisadani ku fashilantay oo la siyaasadeeyay barnaamijka sheer gareer si aynu xaqiiqi ugu doodno meel fogna gaarsii kuna soo biirbareena bulsho barnaamijkana halkan kala soco dhamaad waa dhowr xalqadood baan insha Allah ka sameyn doonaa maadaama qaybo badan noqon doonto haddaba Mabsuud Cabdi Ismaaciil Rooble oo laga dhoofiyay Hargeysa halkaana lagu qasho sheekada hadda taagan 28 cisho ka hor ay ugu dambeysay helkeedii ay maanta shabakadani ku fashilantay Mabsuud waxay ahayd waa inanta aad aragtaan sawirkeeda waana 19 jir foonfooradii sanadka ka baxay ee Soomaaliland waa inan ciidagala ah bahdeyl waa isaaq garxajis ciidagale bahdeylo reer looge inantaasi waxay deganeyd magaalada Hargeysa xaafadda Saylada oo ehelkeedii oo tiiraaysan oo dhibaataysan oo geeriyaysan maanta halka ku nool yihiin Mabsuud waxa sheeka xiriid uu dhexmaray nin la yiraahdo Buskudo oo isaguna ah nin isaaq oo habar Yoonis Saacid Yoonis waana ninka wakiilka uga axalana ee bartaasi ee dadkaasi marka la soo qabto hilibkooda ku wareejiya halkaasi ee gacanta ugu dambaysa ama gacanta labaad ee qabata ah Mabsuud ninka Buskudo wuxuu la sameeyay xiriid markii ay ahayd form 1 muddo markii uu la sheekaysanay sidaan eheladeeda qisada ka helnay ayay shakay sheekooyinkii waxaan uga sheekay shaki baa galay inantii way ka hadhay kadibna waxay saartay blog markii ay saartay ayay inantii sidii kaga hadhay mar dambe lama hadlin way ka tagtay ninku nin cajiib weeyaan oo shabakada weyn ee halka maamula ee uu qolooyin buu la soo hadlay oo fadhiya Hargeysa wuxuu ku yiri inanta halaygo gacanta halayga soo geliyo gabadh ayadana family ma ahayne reer Hargeysa una iyada iyo qabiilkeegii magaceedana barnaamijka labaad maadaama CID iyo maxkamadii ay ku jireen barnaamijkani magacaanta nimankan iyo qabiiladooda si hoose ayaynu dhigi doonaa kadib barnaamijka kale uu soo gudbin doonaa inantaas markaa dhowr jeer tin inantu mid guudna hadaan idin maray shabakada dhalinyaradani waxay noqdeen hal qabiil guud ahaanba marka dambe sida loo siyaasadeynayo oo inanta dhiigeedii loo siyaasadeynayo doona inaan ka hadalnay mudaharaadka bari la qabanqaabinay inantii markaa uu xiriirka la bilaabay uu sidii sameeyay shirqoolkan uu sameeyay gacanta looga soo geliyo inantaas dhowr jeer ku soo noqotay barnaamij baa loo soo bandhigay in shaqo la siinayo fiise Turki xamar baa shaqo laga siinayaa fiise Turkiga ana kadib baa lagu siinayaa inantii markaa damac baa galay bini aadamka wad garanaysaa wadanka xaaladaha dhoof in lagu wada waasho oo shaqadii baa lagu yiri ninkaas ku haya qolaha halka markaa ninkii magaciisa looma sheegin qola lagu hagaajinaya waa barnaamijkan shabakada iyo meelay ku baahiyaan shaqadaas inay soo baxday waa shabakad dheer oo isku xiran shaqadaas soo baxday xamar bay talaaba la yiraahdaa meelaha lagu xayisiyo website waa la soo codsadaa inta ay aqbalaadooda eegan sawirada iyo waxyaabaha iyo qofka iyo qolooyinka halka u fadhiyo waa la soo eega
ninkan 2019 ayaa laga gaaray dhowr dumar iyo rag oo qaarna xamar laga soo celiyay qaarna qabtay ninkani markaa Buskudo wuxuu sameeyay barnaamijkii sidii uu la socday meeshii la oran jiray wuxuu tagay inantii la soo xiriiray iyo nimankii inantii lagu qanci waxa loo soo sameeyay warqadani waa warqad socdaalka degdega ah waa emergency kadib inantii gaari baa laga saaray Hargeysa burca la geeyay burco nin agaasimo ka ah wasaaradahaasi Soomaaliland gadaal ka soo gudbin doona oo dawladda u shaqeeya ayaa isagana lagu hagaajiyo burca joog isagana kadib magaciisa iyo wixii xagad ka soo raacin doona marka arrintan sirdoon ka soo baxdo iyo maxkamadda ninkii inantii waxa la geeyay burco waxa la gudbiyay Ceerigaabo maadaama jidka xagga Laascaanood iyo waxda airportka Hargeysa way mari weydo way shakiyeen waa la qaban baysiyaadeen way airportka imika waa sensitive dhalinyaradu wali markay dhoofiyaan tahriib iyo waxa looga shakiyo waxa la waalidkana la hadashay adu inantii sidii ba Ceerigaabo la geliyay Ceerigaabo markii ka baxday Garowe la geeyay Garowe diyaarad laga saaray ninkii Buskudo oo bartii ku sugay u gacan gashay ninkii uu qaaday wuxuu geeyay Xalane inantii hawsheedii baa la dhameeyay wabillahi tawfiiq ilaahay naxariisa jannada waraabi hadaba sidee lagu ogaaday mid kamid ah ragga xiran oo isagana ka soo sheegi doona xagga dambe magaciisa iyo reerkiisa iyo barnaamijkiisa shaqadu waxay ayay markaa la shakiyay talason baa la tagay nambarkeeda telefoonada iyo xiriirka ay lahaayeen baa sirdoonka la CID-da warqad laga soo qaataa CID-da markaa reerka la isla waafaqo ayaa inantaa loo daabacay communication-kii ay sameeyeen markii loo daabacay reerkii ninkii ay telefoonka ugu badan sameeyeen baa la soo qabtay waxa la guuri inantii keen ninkii wuxuu wacay Buskudo isagoo la dhageysanay markaa CID-dii eheladii inantuba aabaheedu joogo ayaa la garaacay marka ninkani ma garanay kiligii buu moodayay wuxuu waa reer Buskudo saaxiibada waxa la igu haystaa inantii reerkoogii baa rabay la soo celiyo taniyo inanta soo celi wuxuu waa inanta hawsheedii waa la dhameeyay waana la ugu kala tagay waana la hilibkeegii wixii hawshii iyo kaliyeegii wixii waa la dhameeyay hawshaasina way fududaatay Allah u naxariistay inaad waxaad samaysaa reerka waxaad tiraa gabadhii way dhimanto xamar iyo waxbay xabadi ku dhacday ma qaata inta markii ninkan waa la xiray waxa loo gudbay dadkii la shaqeynayay dhan markaa gabadhii baa la soo qabtay iyo intii kale guud ahaan waa 7 qof inta Hargeysa iyo Burco iyo groupkan isku fadhiya Garowe lama ogaan groupkan fadhiya laakiin waa lagu gudan jiraa waa dawlad kaliya Puntland xamarna ashkitay waxba laga galay laakiin u maleyn maayo wax laga qaban karo sheeka xalana gashay lama galgala badooda inantii hadaba maxaa dhacay sheekada inta ugu foorshxuli waxa weeye inantu 20 shay maanta maqan tahay maanta ugu 20 inanta waxay gashay salaadiintii markaa maadaama oo 7 kamid ay isku qabiil yihiin inantuna ciida gala tahay waxa lagu yiri ninka la yiraahdo Cadde Gude oo suldaanka sidaan anagu ku hayno anagu maaha waxna abaalino sida waraysigan iyo hadallada waxaan ka soo qaadnay eheladii inanta Cadde Gude iyo groupkaas waxay sameynayaan barnaamij la yiraahdo in la yiraahdo war cod baynu doonanaa maqrabna inaan kala furfurno meel baynu ku socnaa doorasho lagu jiraa rag baynu ishaynaa inaga daaya barnaamijkan oo waxaad inoo real inoo sameysaan maqaata la fageel jire hoos baa gacmo geel jire hoos baa loo meeray waxana way dhacday inantiina dhimatay magteedii qaata arrintii bay markaa dhalinyaradii xaafada reerka group sidaas oo dhalinyaro ah isku xiran oo cidda warka ay soo siisay aba maanta waxay wadaan barnaamij cabanaan baxa oo maalinta rabariya inta media loo yeero hadii la yiraahdo halka ma idinka soo deyn doona kulleeto in media inta loo yeero ay mudaharaadaan oo inta dhiigeegii inaan la siyaasadayn u soo baxaan hadaba laba shay baan doonaya inaan ka hadlo oo ku soo jaray hadalkayga mid waxa weeye waxa dhacaya sirdoonka wadanku miyaan ka warhayn sirdoonka wadanku waa inuu xogaha noocaas khatarta ah helo shaqadiisana qabsado Facebook iyo waxba lagu qoriyo sheekooyinkani waxaas looma baahna waa taa shaqada loo idimaaday sirdoonka qaranku inay qabtaan talabaadna waxa weeye inta dhiigeega in la siyaasadeeyo waa ceeb iyo nacasnimo ku taalay waa in laga dhiidiyo oo xaqi ay inantaasi lahayd la soo qabto saddexaadna waxa weeyaan dad had iyo jeer ilmahaagu meesha uu marayo halka uu tagay xiriiradu sameynayo inaad ka warhayso dadka xamar jooga inay iyaguna aad isku ilaaliyaan
caruuraha leh xamar baanu tagnaa iyo waxaana in aad looga taxadiro barnaamijka sheer gare meel fog gaarsii aad baan ku